Al-Shabaab ayaa mar kale waxay soo bandhigeen qaar ka mid ah ergadii dooratay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo tagay deegaanada Al-Shabaab kadib markii amar u yeeritaan ah uu ka yimid dhinaca Al-Shabaab. Qaybtii saddexaad ee ergadii dooratay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa Al-Shabaab waxay ku soo bandhigeen deegaanka Bulufulay ee gobolka Bay, kuwaas oo gaaraya ilaa 76 ergo. Al-Shabaab ayaa waxay sheegeen in ergooyinkan ay ka mid yihiin kuwii doortay xildhibaan Maxamed Cusmaan Jawaari oo mar soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, ha yeeshee khilaaf soo gala dhexgalay isaga iyo xukuumadda ayuu isku casilay. Al-Shabaab ayaa horey waxay deegaano kala duwan ku soo bandhigeen ergooyin ay sheegeen inay ahaayeen kuwii doortay baarlamaanka Soomaaliya, iyaga oo sidoo kale waqti dheeri ah ugu daray kuwa aan weli tegin waqtigii hore ee loo qabtay oo ahaa 45 cisho, ha yeeshee uu ka dhammaaday iyaga oo aan weli tegin. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa dhowr mar sheegtay in deegaanadeeda aysan ku soo laaban karin ergooyinka qaatay amarka Al-Shabaab ee tagay deegaanadooda, iyada oo qaar ka mid ah ay soo laabteen xabsiga la dhigay.